sida ku cad qodobka 6aad ee warmurtiyeedka ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaran waxa wasaaradda arrimaha gudaha lagu faray inay soo dhisto maamul sharci ah oo ay Jubbaland yeelato maadaama halkaasi uu ka jiray firaaq maamul wixii ka dambeeyay bishii Oktoobar 2024 ilaa maanta muddo ka badan 13 sano Jubbaland waxay ahayd maamul aan ku dhisnayn heshiis siyaasadeed waxaana xilliyo kala duwan loo sameeyay tanaasul iyadoo la eegayo xalka la iskana indhatirayo xaqa iyo xuquuqda ay dadkaasi leeyihiin rajadii ahayd in Jubbaland ay noqon doonto tiir muhiim ah oo lagu xoojiyo dawladnimada Soomaaliya ma aysan suurtoobin waxayna Kismaayo noqotay saldhig laga abaabulo siyaasad jidiyo jahdiid ah iyadoo horay Axmed Madoobe loogu eedeeyay inuu yahay wakiil u fadhiya dawladda shisheeye Kismaayo mar walbana ka shaqeeya dhibaatada dadka Soomaaliyeed iyo hagardaamada dawladnimada dalka maamulka Jubbaland waxaa si rasmi ah loo dhisay sanadkii 2013 waxaana ka kooban yahay 3 gobol oo kala ah Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo guud ahaanna marka la isku daro 3daasi gobol waa ilaa 15 degmo taliska Axmed Madoobe waxa gacantiisa ku jira oo maamula kaliya 2 degmo hadda waa 2 degmo waana Kismaayo iyo Afmadow oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyaga dhexdoodana waa halaq galeen dadkuna iskuma gudbi karaan waxayna dadku dhibana u yihiin khawaarijta al-shabaab iyo maamul xumada ka jirta taliska Axmed Madoobe 13 degmo ee kale kama taliyo weligiisna ma uusan booqan gobolka Jubbada Dhexe guud ahaantiis waxa uu gacanta ugu jiraa kooxda argagixisada al-shabaab shacabka ku nool 6 degmo ee gobolka Gedo hore ay isaga diideen xukunka iyo nidaamka Axmed Madoobe waxayna u arkaan mid aan sharci ku dhisnayn haddii Axmed Madoobe maamulka uu dhaafsiin waayay Kismaayo iyo Afmadow soo ma habboona in bulshada reer Jubbaland taageeraan isbeddelka iyo qorshaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka maanta Jubbaland waxay haysataa ra'iisul wasaare ka soo jeeda Jubbaland dadkana uga laxo jecel badan Madoobe hirgelinta maamul cusub oo ka hana qaada Jubbaland waxay dawladda Soomaaliya iyo shacabka reer Jubbaland u suurtagelinaysaa inay iska kaashadaan dib u xaraynta deegaanada ku jira gacanta kooxda khawaarijta oo ay ugu horeyso caasimadda maamulka Jubbaland ee Bu'aale